dalka Faransiiska ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xayiraado qaar ka mid ah wadamada Carbeed ay saareen alaabaha laga keeno wadankaasi. Dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale ka codsatay wadamada Bariga Dhexe in ay wax ka qabtaan dukaamada iyo ganacsatada diiday alaabaha ka yimaada Faransiiska. Tallaabadan ayaa ka dambeysay hadalkii madaxweyne Emmanuel Macron uu ku difaacay in la baahiyo sawirada lagu tilmaamayo Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa isaguna sheegay in baaqyada lagu qaadacayo amaba lagu diidayo alaabooyinka Faransiiska ka yimaada ay salka ku hayaan go'aamo runta ka fog oo ay dabada ka riixayaan dad xag jir ah oo kooban. Waa sida uu hadalka u dhigay. Alaabaha ka yimaada Faransiiska ayaa laga saaray dukaamo ku yaala wadamada Kuwait, Urdun iyo Qatar, halka dibadbaxyo kooban oo lagaga soo horjeedo Faransiiskuna ay ka dhaceen Liibiya, Gaza iyo waqooyiga Suuriya. Falcelintan ayaa waxa ay salka ku haysaa faallooyin uu bixiyay madaxweynaha Faransiiska Mr. Macron kadib dilkii loo geystay macallin Faransiis ah oo sawir gacmeed ka sameeyay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Sawirada nabiga ee la baahiyay ayaa aad uga cadhaysiiyay qaar ka mid ah wadamada Islaamka, iyadoo Islaamkuna uu diiday gebi ahaanba in sawir iyo muuqaal lagu muujiyo Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Faransiiska ayaa sheegay inaan la xakamaynin xorriyatul qowlka si loo ilaaliyo dareenka koox gaara, taasi oo wiiqaysa midnimada dalka. Axadii Mr. Macron waxa uu laba jibaaray difaacidda qiimaha Faransiiska, waxaanu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yidhi isma dhiibi doono weligeen. Geesta kale, hogaamiyayaasha siyaasadda ee wadamada Turkiga iyo Bakistan ayaa ku gacan saydhay hadalka Macron, iyagoo ku eedeeyay in aanu ixtiraamin xorriyadda caqiidada iyo in uu takoorayo muslimiinta dalka Faransiiska. Sidoo kale, axadii madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa luuqad adag kula hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, isagoo ku tilmaamay in uu u baahan yahay baaritaan dhinaca maskaxda ah. Hadalka Erdogan ayaa horseeday in Faransiisku ay u yeedhaan safiirkoodii fadhiyay wadanka Turkiga, waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah goobaha laga tukaamaystay ee wadamada Urdun, Qatar iyo Kuwait ay axadii dabadda looga saaray alaabaha ka yimaada Faransiiska sida cadarada, yoogarka, gareemka iyo qaybo ka mid ah raashinada la cuno oo la geyn jiray qaar ka mid ah wadamada Carbeed. Dalka Kuwait, ururka ganacsiga alaabta tafaariiqda ayaa amar ku bixiyay in la qaadaco guud ahaanba badeecadaha laga keeno dalka Faransiiska. Arrintani ayaa Faransiiska u horseedi doonta dhibaato kale oo dhaqaale xilli wadankaasi uu saameyn weyn oo dhaqaale ku yeeshay cudurkii coronavirus, waxaana intaasi dheer in baraha ay ku kulanto bulshada ee wadamada Carbeed ay si weyn uga socoto tallaabooyin lagu diidan yahay oo muwaadiniinta Carbeed ay kaga soo horjeedaan tallaabada uu qaaday madaxweyne Emmanuel Macron, iyagoo faraya ganacsatada inay guud ahaanba joojiyaan agabka iyo alaabooyinka ka yimaada dalka Faransiiska.